بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، waxaynu caawa geli doonaa insha allahu tacaala kitaab hor leh oo ku saabsan fanniga la yihahdo caqiidada. kitaabka waa kitaabka la yihahdo sulam alwusuli ilaa cilmi اlusuli fi tawxiid illah. haddii la macnayana loo tarjumi karo jaranjaradii ku gaarsiinaysay cilmigii asliga ahaa ee ku saabsanaa ilahay keliyadiisa subxaanahu wa tacaala. kitaabku waa kitaab nadmi ah ama gabay ah, waxaana qoray sheekha la yidhaahdo xaafid ibnu axmed alxakami. xakamigaas waa reerkuu kasoo jeeday, waa nin reer qaxdaana weeye. wuxuu dhashay 24 ramadaan 1342 hijriyada oo ku beegnayd 1924. wuxuu geeriyooday allah u naxariistee 1377 oo hijriyadii ah, isagoo weliba soo xajiyey ayaa waxa weeye xanuun uu kala soo laabtay xajkii sababtiisa ayuu u dhintay iyadoo da-diisu ay tahay 35 sano. nin qiimo badan buu ahaa. isaga oo 7 jir ah ayuu madrasada qur-aanka bilaabay. waalidkiis ay ku dareen dugsiga qur-aanka. qur-aankana wuxuu xafiday bilan yar gudahood ayuu ku xafiday. tajwiidkiisa, xifdigiisa iyo waxa weeye wax walba ku saabsanaa qur-aankii xifdintiisa marka ayad ahayd. wuxuu cilmiga ka qaatay sharciga ah culimo fara badan oo ugu weynaa ama ugu caansanaa sheekhiisii cabdullaahi alqarcaawi allah yarxamu. kutub fara badanna wuu daraaseeyey oo bartay. markaad kutubtiisa firfiirisid waxaad arkaysaa inay og yihiin kutubtii mutaqadimiinta, dadkii horreeyey kutubtoodii. 19 markay da-diisa jirtay calaykum salaam ayaa sheekhiisii wuxuu ka dhex arkay fiidhoonaan iyo firfircoonaan iyo faham dheeriya inuu leeyahy. wuxuu marka ku adkeeyey oo ka codsaday inuu alifo kitaab ku saabsan tawxiidka oo ka hadlayo ama kulminayo caqiidadii salafka, oo weliba uu ku diyaariyo qaab gabay uu ku diyaariyo. 19 jir. kitaabka kan ayuu marka sidaa ku alifo. waana kitaabkii ugu horreeyey oo uu alifo. 19 jir ayuu ku alifay. keligiis maahan kutubta uu qoray, kutub fara badan buu qoray. waxaynu ka xasuusan karnaa kitaabka la yihahdo iclaamu sunnati almanshuura oo u qoran qaar su-aal iyo jawaab ah oo caqiidada ku saabsan. aljawharat alfarida ka mid ah oo isaguna qaab gabaya u samaysan. kutub kale oo fara badanna waa uu leeyahay oo ku saabsan musطalaxulxadiidka, fiqiga, usuululfiqiga, cilmiga dhaxalka, dardaaran, aadaab wamaa ila dalik, oo isugu jirto kutub gabay ah iyo kutub waxa weeye saacadii u qoran. adiib buu ahaa ee weliba dadkii gabaygooda sida aadka a loo danayn jiray oo ereyada cuslaa oo murtida badnaa uu ka mid ahaa, gaar ahaan dhinacaas uu ka soo jeeday ee jaazaan iyo xaggaas marka la aado.
ninkaas da'diisa oo saa u yar fawaa'id fara badan buu ka tegay kitaabkan hadda aynu hayno uu ka mid yahay arki doono erayadiisa uu culus yahay insha Allah ta'ala daraasaynta kutub al-aqeeda la daraaseeyo ma ahayn shay horeeyay oo xilligii saxaabada jiray ma ahayn maxaa yeelay kitaabkii iyo sunnada toos looga qaadan jiray wixii ku saabsan caqiido murna ma taagnaan jirin saxaabaduna masaa'ilka caqadiga ah julluhum way isku waafaqsanayeen mas'alo marka laga soo tago mas'alo marka laga soo tago saas daraaddeed ayaa cilmigu wuxuu ahaa labo cilmi ku saabsan ama laba qaybood oo waaweyn cilmi ku saabsan culumta usuusha ah ee kitaabka iyo sunnaha ku tacalluqa iyo cilmi laga istinbaaday usuushaas oo funuun kala gedisana ama fiqi ha noqdo ama usuushiisa ha noqdo ama ilaahay kuma sabandiiday maxaa ku dhaha caqiida ha noqoto ama wax mucaamalaad ku saabsan ha noqdaan kutubta noocaas ee fanniyaadka iyaguna waxaa laga soo dheegtay ama lagala soo dhexbaxay kitaabka iyo sunnada culumtii asalka ahayd ay ku taalo caqiidada marka in gaar loo daraaseeyo oo gaar loo qoro waqti aada u horreeyey oo xilli taabiciintiiba ay joogeen ayay bilaabatay waxayna ku bilaabatay markii ikhtilaafkii uu fara batay oo ummaddii ay kala tagtay oo nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi arrimihii uu ka dardaarmayay ay soo baxeen salawaatu ullahi wasalaamu calayh siduu axaadiida ku tilmaamaya fa innahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kaiira bu salawatu ullahi wasalaamu calayh qofkii iga dambeeyo oo noolaado wuxuu arki doonaa iska hor imaadyo fara badan iyo wax jirjira markii uu tilmaamaya makhrajka looga baxayna muxuu yidhi fa calaykum bisunnatii sunnadeeda qabsada markaad aragtaan in la iskhilaafay in la isgafay in la ismaandhaafay sunnadeeda qabsada yuu nabiga salawatu ullahi wasalaamu calayh sunnadaas marka uu dardaarmay baa dad muslimiintii ka mid ah uu ka galay mugdi sidii wax looga fahmayay si aanan ahayna ay ka fahmeen sidaa aawadeed baa waxaa qasab noqotay shubihii dadka ay la yimaadeen in la bushiyo oo lagu bedelo lagu daaweeyo sunnadii iyo ilaahay kuma sabadiiday ee kitaabkii fi-adii ugu horreysay ee baxdayna waxay ahayd fi-adii la dhihi jiray alkhawaarij oo culimmadu ay gaarsiiyaan ilaa mustawo ah nebigu oo jooga salawaatu ullahi wasalaamu calayh inay bilowdeen oo ninkii dulkhuwaysira intuu nebigu u yimid salawatu ullahi wasalaamu calayh wax qaybiyey uu yidhi yaa maxamed icdil fa innaka lam tacdil oo uu yidhi wayxak faman yacdilu in lam acdil wuxuu yidhi maxamedow si fiican wuxuu qaybiyey cadaalad same buu yidhi waayo cadaalad maadan samaynin markaasuu yidhi war hoogaage haddaanan anigu cadaalad samaynin iyo cadaalad samaynayo cumar wuxuu damcay ninkaa intuu ka daba tago inuu markiiba dilo ha yeeshee nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi kaa waxaa ka farcami doona oo ciribtiisa ka soo bixi doona dad caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa ah oo qur-aankooda markaad fiirisaan aad kiina yasaysaan ood cibaadadooda aada cibaadadiina u yasaysaan oo wuxuu yidhi qur-aanka akhriyahayo halkaa dhunta aan isugu dhaafaynin buu yidhi macnaheedu waa maxay iimaan ahaan u geli mayo mana fahmayaan wuxuu yidhi marka nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi qofkii soo gaaro hala diriro oo ha dilo waayo dilkooda ajir baa laga helayaa buri salawatu ullahi wasalaamu calayh dilkooda ajir baa laga helayaa